xaydhka magaalada dhagaxdheer ee ka tirsan gobolka Togdheer iyo sidoo kale xubno ka mid ah maamulka deegaankaasi ayaa telefishinka caalamiga ah Home Cable TV oo deegaankaasi xog ururinka waday waxay uga warbixiyeen baahiyo dhinaca nolosha aasaasiga oo ku xeeran deegaankaasi iyagoona sheegay in xukuumadda Soomaaliland uu hogaamiye madaxweyne muuse biixi cabdi ay dayacday deegaankaasi isla markaasina ugu baaqay in deegaankaasi si dhaqso wax loo taro maadaama ay ka mid yihiin dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoona sidoo kale dhaliil u soo jeediyay hay'adaha ka howlgala gobolka Togdheer dawladda waxbaanu ka cabanaynaa hay'adahana waxbaanu ka cabanaynaa magaalada afar qaybood oo afar wasaarood kala xukunto iyo population-ka shanta qaybood baa jooga shantaba baahiyaad bay qabaan baahiyaadkoodu waa tiro badan dhaam ma lihin oo riig ma lihin sida qaalibka 3 bilood 4 bilood baa marmar yaa waqtiga abaarta nagu tagtaa xagga rabbi un baa laga noolaaday iyo dhaqdhaqaaq iskuulku waa barkad la'ay buurna waa ku yaalaado dhaqaale lagu qodo oo buurta lagu qodan dhaqaale lagu sameeyana waa la'ay dawladda waxaan ka dalbanayaa in wax nalooga qabto naloo qalabeeyo oo macallimiin tayala la keeno oo wixii iminka gaaray dayaca gaaray wuxuu ku gaaray waashmaan la'aan iyo ilaalin la'aan iyo dhaqaale la'aan buu ku gaaray dawladdan uga cabanaya horena waaga wada hadal muuse bixi sida aynu soo hortaagnay baan soo hortaag waa iga ballan qaad in waashmaankii sare uu bilaabo wixii kalena ay ka daba taga afarta bilood ugu horeeyana waa soo raacinaya buu ana kala wareegay maanta wixii laga bilaabo wax kaaga baxayo damaba jiro ninkii ilaalin jiray inuu raggan ku jiriyay kala garan maaye afartii bilood hor u soo dir hadal dambe iyo kormeer dambe inaan kale markuu isku soo qaaday marba isku soo qaaday waxaan ku anigu dadkan wax ka guri jirnaa waa kii cayloobay musabaxa maalintii ka ballan qaaday oo dhan musabax qaba ama hadii kale iskaga tagiyo caruuri baa garaacdo imanka muraadi oo dhan waa jajaban yihiin dawladda waxaan uga baahana wax qabad baan uga baahana dhagaxdheer abaartii dunida ka dhacday ee Soomaaliland ka dhacday way ka dhacday dadkii cayloobay way ku cayloobeen barakacayaashii way joogan waxa dhacday oo noo gaara anagu intaaba ummadda kala mid ah hal hay'ada oo noo timi oo dadka wax tartay subaxna ha ahaatee ma jirto ilaa ramaah iyo qabiyo tiri iyo barasaabka maanta jooga intaba cabatinkayga iyo waraaqahayga waan u geyn waxaan u malaynayaa deemal doctor kuma la iska dhigaayo cidima soo hadal qaado hay'adaha qaar xitaa way noo yimaadeen waxay yiraahdeen liiskaba nooguma jirtaan barasaabka xitaa kelmadda waan weydiinay oo odayalba u tagi meesha liiskana lagaga saaray Soomaaliland ayaanu al'aana la yaabanahay kii uu maalintii barasaabkuna lahaa arrinkaasi waa been oo hay'adii idintii baa been idin sheegtay mar haddaanaan ilaa maanta waxba ka haynin waxaan qabaa inay tii hay'adu sheegtay inuu ay runtahay oo aanu liiskii ka maqanahay qodobka ugu weyn waxa weeye hay'aduhu tulooyinka hareeraha naga xiga waxbay ku bixiyaan oo dad bay raashin u qoreen hal shub qof la siiyay dhowr iyo 10 sanadood ma jiro dad badanina way ku nooliyeen oo xoolay ka baxeen oo barakacayaala waxaan codsanaynaa bal in gaar loo eego arintayada iyo cabatinkayaga oo mar qura bal dawladdu timaado haday barasaab tahay iyo haday wasiir tahayba bal waxaanu ka hadlaynaa inay run yihiin iyo inay been yihiin nala arko wax maalin qura hadaanu arki lahayn cid ka soconaysa dawladda oo loo timaada oo tiyaada maxaa qabtaan wallahi waa farxi lahayn ama waxa waanu soo lahayn cid baa idin maqan ragii aanu u kufaaxnay ee dooranay ee meel kasta ka maray maalintii baa noogu dambeysay macquul maaha dawladdu waxbay xaq noogu leedahay waxban xaq ugu leedahay waxaanu xaq ugu leedahay baanu doonaynaa isku soo wada duub cabatinka waxaanu u jeedaynaa dawladda iyo xukuumadda hadda dhagaxdheernahay wayna ilowday waxaanu ballan ku qaadi doonaa inaanu ilowno xilliga iyo way baaxadaan Ibrahim Faarax macaan iyo Home Cable TV burco